Asalaamu calaykum waraxmatullah. Waa soo dhaweynaya dhammaan akhyaarta ku taxan barayga bulshada meel kasta oo joogtiin gacmo furan ku soo dhawaada. Waxaynu halkeedii kasii wadaynaa muuqaaladii taxanaha ahaa ee aan ka duubaynay barnaamijkii ama projectigii aan ka wadnay magaalada Kismaayo ee Holaal Hotel Project. Waxaanu ku jirnaa barnaamijkeenii maanta iyo shaqadeenna. Waxaan soo bilownay shalay walling ama dhismaha derbiga. qaybta hoose oo qalalan arkaysid waa mitir koobaadkii aan shalay dhisnay, qaybta kore ee qoyanna waa mitir koobaadkii maanta aan dhisayno. Marka soo dhawaada akhyaarta, waxaan filayaa inaad la socotiin. mitir labaadka ayaan dhisaynaa, waa ujeedaa hadda wakaanika odaga waxa uu dhisayaa waa mitir labaad. Marka tibiska muhiimka ah ee aan isleeyahay injineerada ama fresh engineerska ama ardayda way anfacaysaa waxaa ka mid ah kow in injineerku uu hubiyaa halka ay noqonayaan daaqadaha. waa inaan designka ku laabtaa injineerka uu soo hubiyaa halka ay noqonayaan exact locationska daaqadaha, cabirkooda iyo size-kooda, joog iyo dhererba waa inuu fundiga u calaamadeeyaa oo uu ku hubiyaa. waxaa kaloo muhiim ah injineerka inuu hubiyaa buluketiga ama dhagax qorqorka habka la isku saarayo ee fundiyada waa inuu la xisaabtamaa. waa inuu tamaasheeyaa oo derbiga iyo toosnaanteeda uu hubiyaa injineerka. mootarka ama shimiitada loo isticmaalayo waa inuu quality-geeda iyo ratio-geeda uu hubiyaa weeyaan injineerka. qodobadaas ayaa isleeyahay waa muhiim in injineerku uu si fiican ula socdo. aslan shaqada fundiga uu qabanaya injineerka waa inuu ogaadaa. marka maalin kasta tibis ayaan bixinaa, fadlan la socdo insha allahu tacaala. marka sidaas weeye muuqaalkiina maanta. ninka odaga Maxamed Deer wali waa ku jiraa yimiin rayn baa ninka. maanta waa mitir labaad kadib shalay wuxuu ahaa mitir koobaad. ما شاء الله ما شاء الله. يا محمد maxamed aadan waa. محمد دير نين نين راجع نين. mitir labaadka waa ujeedaa. Maxamed Deer wuxuu ku jiraa fundiyaasha aan jeclahay, waa ragga si fiican derbiyada u dhisa weeyaan. intana mid kale ayaa ka shaqeynaya ninka hadda shaqada uu ku yara laabtay. marka meesha hadii isla xisaabtan aysan jirin waxba ma soconayaan. injineerku waa inuu la xisaabtamaa fundiyaasha, feerolayaasha, faryaamayaasha, plumberska, dhammaan shaqaalaha tiimka dhan ninkii hoos imaanaya waa injineerka. shaqada uu markaa bixiyaa subaxii waa inuu si fiican u soo kormeeraa. hadda aniga 12 aroornimo ayaan badanaa imaanaa ee shaqada bilownaa, halkaas ayaana instructionskan ku bixinaa. sidoo kale waxaa qodob kale muhiim ah injineerka inuu ogaado waxa loo yaqaano suusuun waa garanaysiin waa kana waa labada dhagax marka la is saaro salaxmada yarta oo labada dhagax u dhaxaynayso waa kuwa anaga waxaan baa la suusuun ma fahmaysaa. marka anaga ilaahay wuxuu nagu manaystay dhagax qorqorkaas buluketiga compressive strength-giisa waa ka fiican yahay, waa ka adag yahay. marka suusuunkana waa muhiim. soo dhawaada akhyaarta. waxa ugu muhiimsan oo ku celinayaa injineerku waa inuu hubiyaa exact location of windows. garbaha albaabka muhiim waaye. soo muujad meeshan garab waaye. qaybtan guriga mitir koobaad ayaa ka socdo. qaybtan hadda idin muuqato. marka soo dhawaada akhyaarta, aad ayaa idin soo dhaweynayaa. halkaas ayay shaqada noo maraysaa. waxaa kaloo muhiim ah qaybta hadda arkayseen qolkii ahaa bullet proofka waxaa ku xiran weli alwaax. waa kan alwaaxan qolkan shubaa socdo. marka waxaa muhiim ah structure-ka inaan laga fiiqin foam waaga maalinta la dhiso maalinta ku xigto. wakaada weli laga toorada ayaa ku xiran. intaas ayaan kusoo koobayaa muuqaalkayga. soo dhawaada akhyaarta, wixii su'aalaha soo dhawaada description-kan akhriya please. engineerska description-kan la akhriya please. asalaamu calaykum.